wareegtadan ka soo baxday madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayuu ku soo magacaabay guddi ka kooban 22 xubnood si ay garwadaan kaga noqdaan doorashooyinka guud ee sanadkan ka qabsoomaysa gudaha dalka Soomaaliya. guddigan 15 kamid ah waxa ay yihiin rag halka 7 kalena ay dumar yihiin, waxaana magacaabidooda lagu saleeyay heer federaal iyo heer gobol sida ku cad wareegtadan ka soo baxday madaxweynaha dowladda Soomaaliya. guddigan ka kooban 22 xubnood oo uu soo saaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa kamid ah عمر محمد عبد الله، مستقيم ويل، محمد كينان، سعيد جامع علي قرشيل، نفيسة جيدي سنتور، محمد علي ديرية، عبد الرحمن شيخ معاوية، دقيقة ياسين حاجي يوسف، سعيدة محمد مسعيد، أويس أبو بكر سكرو، سهرة عبد حسين جامع، برهان علمي حرسي، عبد العزيز شيخ حسين ديب، عبد الله علي آدن قران، سلاد علي إبراهيم عطوش، آدن عبد الناصر محمد، عبد الله سلاد يرو، ياسين عبد الجامع، أحمد محمد سعيد، فردوسة محمد دعالي، آمنة عبد الله الديرو، إيا الراحم محمد جنخو. guddigan ayaa waxay hawshooda noqon doontaa dejinta qorshe hirgelin oo faahfaahsan jadwalka doorashooyinka iyo inuu ku dhawaaqo taariikhda ay dhacayso doorashooyinka sanadkan 2016. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, Bulsha TV, Muqdisho.